السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkii sideedaad ee taxanaheennii barashada HTML iyo CSS. muuqaalkan waxaan isla arkaynaa variable. CSS variable waxay yihiin faa'iidooyinkooda iyo waxyaabaha loo isticmaalo. Horta variable-ka marka la eegayo programming languages-ka, inkastoo aan CSS-ka programming language aan ahayn, variable-ka waxa lagu qeexaa waa container baa la yiraahdaa ama waa weel kuwa haya qiimo aad ku ridatay. weel aad qiimo ku ridanayso, qiimahaasna aad u isticmaali karto meel walba ama dhowr meelood oo kala duwan, ilaa 100 meelood, 7 meelood, 20 meelood, kolba meesha inta doonayso aad u isticmaali karto. qiimahaasi si aad u bedesho markaas hadhoodii kaliya waxaad bedelaysaa halkii qiimaha aad ku qeexatay ama aad ku ridatay oo kaliya. 100 meelood ama 50 meelood kala aad u isticmaashana ma bedeli doontid, iskumana hawli doontid inaad wixii aad meel aad u isticmaasho inaad bedesho. haddii si kale aan u dhigo ama tusaale si kale aan u dhigo, tusaale ahaan imika haddaan element walba aan u isticmaalo background color, tusaale background color red, saas oo kale haddaan qol element oo kala duwan oo code-keena kamid ah ama project-keena kamid ah haddii aan maxay u isticmaalo oo isla markaana mar walba background color kadibna colorka aan qoro, hadhow haddaan colorka bedel aan israacdo waxaan u baahanayaa inaan line walba intaan dul tago aan bedelo si automatic aan u bedelo, ama aanoo text editor-ka isticmaalayo maxay in aan find intaan raahdo kadibna replace aan ku bedelo oo steps dheer ah. laakiin haddii aan variable isticmaalayo, variable-ka kaliya waxaan bedeli doonaa variable-kaasi boqolaalkii meelood kale aan u isticmaalay qiimahaasi background-ka maxay rarkaana si automatic ay isku bedeli doonaan. marka hortaan isla aragno kadib ayaan si fiican u fahmaynaa. okay, si marka variable aad u qeexato, ugu horreyn waxaad oran kartaa root ayaad oranaysaa. root kale waxaad ka hormarinaysaa labada dhibcood ayaad ka hormarinaysaa, kadib ayaad root oranaysaa, kadibna waxaad soo furanaysaa curly bracket-kaasi, bracket-yadaas ayaad soo furanaysaa. okay, color ayaan doonaynaa markaan variable ku ridano, ama waxaan doonaynaa inaan samaysano variable noo haya color noo haya color background waliba. okay, si variable-ka markaan u qeexo waxaan samayn doonaa laba dash ayaan siin doonaa hyphen, laba hyphen ama minus, kadibna magaca aan doonayo ayaan ula baxay. tusaale waxaan iska oran doonaa bg oo aan background usoo gaabiyey color, sida aan capital waxaad doontaa ka dhigi kartaa bg color baan iraahdo. okay, marka sida property-ga caadiga aan u isticmaali jirnay oo kale ayaan u qoraynaa, kaliya labada minus uma ka hormarinaynaa. okay, labada dhibcood markaan qoro kadib waxaan qiimihii aan doonayay ayaan ku ridan doonaa. okay, waxaan oran doonaa red ayaan doonayaa inaan ka dhigo, marka waxaan oran doonaa anoo hexadecimal isticmaalayo waxaan oran doonaa 2f40. okay, save and run. okay, haddaba markaa variable-ka markaan qeexday si aan elementyada oo dhan aan ugu isticmaalo, waxaan tagi doonaa element-ka aan doonayo inaan variable-ka ku dhex isticmaalo, kadibna waxaan qori doonaa tusaale background-ka aan doonayo inaan ku isticmaalo variable-kaasi. waxaan qori doonaa background color ayaan qori doonaa, kadib si aan u isticmaalo waxaan qori doonaa var, function-ka loo yaqaano var ayaan qori doonaa. var markaan raahdo kadib waxaan soo qaadan doonaa magacii variable-ka, labadii minus iyo maxay magacintii oo isku wadato ayaan soo qaadan doonaa, kadibna halkan ayaan copy ku oran doonaa ama waa qori kartaa. okay, marka haddaan save raahdo wax isbedela ma aragno, sababtoo ah colorkii hore iyo colorkan ayaa isku mid ah. okay, imika tusaalahaan haddii aan bedelo marka colorkan haddaan bedelo si automatic ayuu isku bedeli doonaa. tusaalahaan aan raahdo black baan ka dhigo, waan raahdo black, save, waad aragtaa marka kaliya halkaas weyn baan bedeli doonaa. tusaale ahaan intiisa horaan kusoo celino, save and raahdo, soo kale element-gan aan u isticmaalo background-kiisa aan u isticmaalo, waxaan oran doonaa markaan property-ga background color-ka aan qoro, property-ga background color-ka markaan qoro ayaa waxaan oran doonaa var, function-ka la yiraahdo, labada bracket ayaan furan doonaa. okay, dhexdooda ayaan waxaan ku qori doonaa markaa magaca variable-ka oo ahaa bg color, save and raahdo, kaana waad aragtaan colorkii u qaatay. soo kale kanna maxay aan ku apply gareeyo, waan raahdo var, kadibna aan raahdo magaca variable-ka. okay, save. okay, marka faa'iidooyinka variable-ka waa sida oo imika uma baahni in aan saddexda meelood ama saddexda element inaan mid walba intaan dul tago aan bedelo uma baahni, kaliya waxaan bedeli doonaa colorka haddaan doonayo inaan iska bedelo, kaliya waxaan bedeli doonaa halkan variable-ka ayuun baan isbedel ku samayn doonaa. oo imika haddaan raahdo black mar kale haddaan raahdo aan save raahdo, waad aragtaan line-kaas kaliya ayaan edit gareeyay, elementiska kale oo dhanna editing way qaateen ama way isbedeleen. okay, muuqaalkeena maanta markaa intaas ayaan kusoo koobayaa. muuqaalkan xiga intaan ku kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo.